sheekadeeni maanta waxay ku saabsan tahay wiil yar oo ku dhashay xaafad faqiir ah oo ku taala gobolka Rio de Janeiro ee Brazil. Tobanlabadii Luulyo 2000 wiilkan wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah. Aabihiisa wuxuu ahaa shaqaale heeroosaad ah, mana awoodi jirin inuu si fiican ugu maareeyo baahiyaha qoyskiisa. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu carruurnimadiisa ku qaatay isagoo ciyaaraya kubadda cagta ee xaafadda dadka saboolka ku noolaayeen, isagoo la ciyaari jiray asxaabtiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, aabihiisa oo sigaar cabaya ayaa arkay wiilkiisa oo aad ugu wanaagsan kubadda cagta, wuxuuna go'aansaday inuu maalgashi ku sameeyo mustaqbalka wiilkiisa si uu uga baxo saboolnimada. Wiilka iyadoo da'diisu tahay 5 sano, aabihiis wuxuu geeyey iskuul kubadda cagta oo la yiraahdo Villa Gonzalo oo ka tirsan kooxda Flamengo ee Brazil. Inkastoo qoyskiisa sabool ahaa oo ay la daala dhacayeen qarashaadka safarka maalinlaha ah, hooyadiisana isku dayday inay markasta wiilkeeda geyso goobta tababarka, haddana waxay ku guuleystay inay sii wadaan halganka. Sanadkii 2007 wiilkan wuxuu bilaabay inuu ciyaaro kubadda cagta gudaha fuustalka, waxaana si fiican looga qiray xirfadiisa. Si kastaba ha ahaatee, maadaama da'diisu wiil yaraa, kooxda waxay u sheegtay inuu sanadka soo socdo dib ugu soo laaban karo. Aabihiis wuxuu go'aansaday inuu wiilkiisa geeyo tijaabada kooxda weyn ee Flamengo, halkaas uu ku guuleystay inuu ku biiro. Muddooyinkaasi wiilkan wuxuu bilaabay inuu ka rumeeyo riyadiisa kubadda cagta kadib markii uu ku biiray kooxda weyn ee Brazil ka tirsan. Sheekadani waxay muujinaysaa sida dadaalka iyo taageerada waalidka u horseedi karto guul xitaa duruufaha adag. Sheekadeeni waxay ka hadlaysaa ciyaaryahanka magaciisa la yiraahdo Vinicius Junior oo ku dhashay xaafad faqiir ah oo ku taalo Rio de Janeiro ee Brazil. Aabihiis ayaa arkay xirfadiisa kubadda cagta isagoo aad u da'yar, wuxuuna go'aansaday inuu maalgeliyo mustaqbalkiisa. Vinicius wuxuu ku biiray kooxaha kubadda cagta markii uu 5 sano jir ahaa, waxaana si weyn loogu yaqiinsaday xirfadiisa gaarka ah. Wuxuu si tartiib ah ugu soo baxay kooxaha da'yarta. Intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2017, Vinicius wuxuu noqday mid ka mid ah xidigaha ugu waaweyn ee kooxda da'yarta Flamengo, isagoo soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee Yurub, gaar ahaan Barcelona iyo Real Madrid. Xitaa Barcelona ayaa diraysay madax ka socota dhankooda si ay soo daawadaan xirfadiisa kadib markii uu la qaatay kooxdiisa guulo badan oo heer da'yar ah. Flamengo waxay la saxiixadeen Vinicius heshiiskii ugu horeeyay xirfadiisa isagoo jira 16 sano. 2017 Real Madrid ayaa ku guuleystay inay heshiis la gaarto Vinicius iyagoo bixiyay 45 milyan oo euro, taasoo noqotay heshiiskii ugu qaalisanaa ciyaaryahan da'diisu ka yar tahay 19 sano. Vinicius wuxuu ahaa ciyaaryahankii loo arkayay inuu buuxin karo booskii Cristiano Ronaldo oo kooxda ka tagay isla waqtigaas. Si kastaba ha ahaatee, sanadihii hore ee Real Madrid ma ahayn kuwa sahlan, iyadoo uu la kulmay cadaadis aad u weyn iyo shaki ku saabsan xirfadiisa. Vinicius wuxuu la kulmay caqabado badan oo ay ku jiraan fursado badan oo si fudud u lumiyay iyo dhaawacyo. Luminta fursadaha iyo khasaarintiisa waxay sababtay inay isku dhacaan weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema, markaas oo Benzema ciyaartooyda Madrid u sheegay in kubadda loo baasin Vinicius sabab la xiriira khasaarintiisa badan. Inta badan wuxuu la kulmay dhaleeceyn badan oo ugu imaanaysa taageerayaasha iyo warbaahinta, taasoo sababtay in marar badan uu dareemo murugo iyo xanaaq. Inkastoo uu sameeyay horumar badan, haddana cadaadiska ayaa si weyn u saameeyay bandhigiisa garoonka. Markii uu yimid tababare Carlo Ancelotti sanadkii 2021, Vinicius wuxuu helay kalsooni iyo dhiirigelin buuxda oo uu kaga soo kabto duruufahaas adag. Ancelotti wuxuu siiyay da'yarkan xurriyad buuxda oo uu ku muujin karo hibadiisa, taasoo keentay inuu noqdo mid ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda. Xilli ciyaareedkii 2021-2022, Vinicius wuxuu dhaliyay 22 gool oo uu sidoo kale bixiyay 20 caawin, halka xilli ciyaareedkii xigay oo xirfadiisa kor u sii qaaday oo uu dhaliyay 23 gool iyo 22 caawin. Maanta Vinicius wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu sareysa kubadda cagta ee adduunka, isagoo loo aqoonsaday xidig weyn oo Real Madrid ah, wuxuuna ka soo baxay dhaleeceyn badan iyo cadaadis weyn si uu u noqdo haliyey, isagoo sanadkan u tartamaya abaalmarinta Ballon d'Or-ka oo uu hiigsanayo. Tani waa qisada Vinicius Junior, ciyaaryahankii yaraa ee ka soo baxay xaafadda faqiirka ah ee Rio de Janeiro, isagoo maanta ah mid ka mid ah xidigaha ugu waaweyn ee dunida. Qisada Vinicius halkaas ayuu ku soo dhamaatay. Maxaa kaaga baxay qisadeeni maanta? Aniga ahaan, weligaa ha qulsan oo waad gaari doontaa riyooyinkaaga. Haddaad halkan nala soo gaartay, waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saarto oo nagu soo biirto.